واني لبا شالي كرا أكتينا كستومدي دارك حتى كل جنايا ويسمي كرنا ودغن حمدي أو ميشان تاجن وكل واحد أوجه إنه يكونوا شيء قبل أن مقالة نيروبي يدلك كيا دلك كيا وحلوية قال إنه يكونوا رجال علماء يا أبدا أي وهاللوايين قف مقالة للجوجا أو دمرة أو مالك استوحياله عشحما صود جيسا مالك استوحياله أنا المارت قرحونين صوب دقيسا سببت اللغة هاللوايين غير نيروبي أو مركز أفك وقبستين oo maalin kasta iyadoo ajirkeedii ajiradeedii ay muuqdaan ay soo galinayso oo haddana isliilayso soo horbax Axmed Rashiid waxaan leeyahay shalay waxaad la dagaalamaysaa dhalinyarada isbahaysta ee markaas daroogada isticmaalay dadka baarta taageerahayga waa sida qoyskayga waxay ii dhiirigeliyaan sida military waxay ila taliyaan sida aan u daalin ila soo horabkayga wax ka baa assalaamu calaykum warahmatullaahi tacaala wabarakaatuh waan salaamay dhammaan asxaabtayda qaaliga meel kasta aad joogtiin soo dhawaad jibraan fadada cusubta soo dhawow hadda hore joogtina aad iyo aad u maastay sida quruxdii sharaftii ciisadii karaamada leh oo aan mar kasta ugu xirantahay channelkayga oo soo booqata subscribe igu saartay aad iyo aad u maastiin haddaad igu cusubtiin waxay leeyahay soo dhawaad gacmo furan channelku waa channelkiini subscribe-ka waxba kuma taro markuu aad kaliya haysatid laakiin marka aan igu soo bartid ama maarta subscribe ii soo saartid wax weyn ayuu ii taraa meel weyn iga soo baxa aad iyo aad u maastiin soo dhawaad muuqaal kale waxaan ka hadli doonaa gabar isticmaasha aaladda TikTok oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ayaa markaas waxay inta badan uga duwan tahay gabdhaha kale ee social media isticmaala iyadu waxay soo gudbisaa waxyaalo aysan jeclaanin bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha caalamka oo markaas isticmaala aaladda TikTok ama social media dhamaantood gabadhan ka hadlayno gabar kale ma ahan waxa lagu magacaabaa Queen Canab saujidi waan ka sawirkeeda waxay isticmaashaa social media qaasatan TikTok ay u badan tahay bartaas ay waxay soo gelisaa fiidiyoyo kala duwan ha soo geliso ma soo gelisaa fiidiyoyo oo markaas ummadda Soomaaliyeed wax u faa'iideynaya ama ay wax ka faa'iidayaan ama ay wax ka ka kororsanayaan ma soo geliso fiidiyo noocaas inta badan waxay soo gelisaa fiidiyoyo aad iyo aad u dhaqan xun fiidiyoyo dadka midba ka sii dambeeya ay ummadda Soomaaliyeed la yaabayaan waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed waxa u sheegayaa qaasatan taawada ama maaragtay social media TikTok ku jira waxaan maanta waa adduunyo berina waa aakhiro jirkaaga xumin kamid ah hadaad banaanka soo saartid ama waxyaalo qaldan aad sameeysid ogow Ilaahay wuu kugula xisaabtamayaa maalinta aakhiro adduunyada ma ahan meel lagu waaraayo ma ahan waa meel qofka uu ku nagaadayo ma ahan meel aad qofka uu ku qaadanayo inta weligiis uu joogayo ma ahan laakiin waa meel aad ka tagaysid maalin un ama ha dheeraato ama ha dhawaato waad tagaysaa taas waa xaqiiq Ilaahay ku abuurtan waa hor tagaysaa marka fiidada qaarkood ee markaas gabadhan dadka ku baraarujinayso ama gabadhan ay soo duubayso oo ay dadka la soo wadaagayso waxa laga yaabaa gabdho kale inay ku daysadaan waxa laga yaabaa dad kale inay u arkaan gabadhan wax la hadlayo ma lahayn maxaa oo loo sameyn waayay bal ila soo daawo muuqaalkan fiidiyogan qaabka u hadlayso ay ku sheegayso dhalinyarada ama wiilasha isticmaala social media qaasatan TikTok waxay ku tilmaamayso iyo qaabka ila hadlayso bal waa kale ila soo daawada واني لبا شالي كرا أكتينا كستومدي دارك حتى كل جنايا ويسمي جيبان soo daawateenba waxay ka hadlaysaa waxay dhahday dhalinyarada wiilasha ah ee isticmaala TikTok bataatanba ima geeyaan hortooda ku qubaysanaya hortooda dharka isaga siibaya hortooda waxaan ku sameynayaa taasi waa muuqaal aad iyo aad u xun yaa u baneeyay yaa ku xalaaleeyay xagee walaalo ka noqoteen ma hooyadaa kula dhashay caawdo see amal dadka see u isticmaalaysaa marka waxaan dhihi karnaa waa dhaqan xumadii oo meeshan taagan sidoo kale waxaan ogahay inay ku nooshay gabadhan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa lagu yaqaanay inay ku nool yihiin culimo aad iyo aad u badan oo markaas bulshada Soomaaliyeed xil aad iyo aad u weyn u haaya uu ka mid yahay Sheekh Umal uu ka mid yahay Sheekh Shibili oo magaaladaas Nairobi ku nool khaasatan Isli
sidoo kale waxaa ognahay dhalinyarada social media isticmaala ee Nairobi jooga ee youtuberada leh ee tiktokerada leh ee maaragtay wadanka la degan sababta ay uga hadli waayeen qof magaalada la jooga oo dumar ah oo maalin kasta waxyaalo asho xumaa soo dhigaysa maalin kasta waxyaalo aanan maaragtay qurxooneyn soo bandhigaysa sababta looga hadli waayay reer Nairobi oo markaas afka uga qabsateen oo maalin kasta iyadoo ajirkeedii iyo ajiradeedii ay muuqdaan ay soo galinayso oo haddana isliil soo horbaxayo maxaa dhacay see waxa jiraan dadkii aaway dadkii Nairobi deganaa aaway youtuberada tiktokerada culimadii aaway sidoo kale waxaan rabaa inaan u diro Axmed Rashiid fariin Axmed Rashiid waxaan leeyahay shalay waxaad la dagaalamaysa dhalinyarada isbahaysta ee markaas daroogada isticmaalay dadka baarta dadkaasna meel fiican baad uga soo hartay waana kaaga mahadcelinaynaa hadaan bulshada Soomaaliyeed maadaama aniga aan kamid ahay reer Islii aan kamid ahay waliga Islii aan deganaa aad xaalad si fiican baa loo socdaa sidoo kale waxaan ku bogaadinayaa ama aan u sheegayaa arintan kale ee gabdhaha Nairobi joogay muslimaadka si fidneenaya ee dhaqan xubadan soo faafinaya inuu isagana maanta ka hortago waa qofka kaliya ee maanta la xisaabtami kara gabdhahan dhaqan xumada wada ee gabdhaheena fiican ee akhlaaqda leh ee sharafta leh ee wanaaga badan leh inay meel xun ku hogaamiyaan rabaan wallahi waa nin ka hortag kale oo kaliya waay sababtoo ah waxaan ognahay Axmed Rashiid inuu joogo magaalada Nairobi ee dalkeenu ku nool yahay dadkan wax soo isticmaalaya ama waxaan soo gudbinaya waxaan anshax tirada gabdhahan soo gudbinaya qaarkood inay ku nool yihiin magaalada Nairobi ma dhihi karno tolkii ehelkii aaway sababtoo ah waa ognahay waa dareemi karnaa tolkii inay qaban waayeen oo maaragtay ay meel uga soo hari waayeen laakiin waxaan fariin u diranaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Islii qaasatan erida iyo degan tahay in lala xisaabtamo xisaab dhab ah oo waxa la iskaga qabto dad waxaan waa fidno loo soo diray maxallahay ummadda Soomaaliyeed loo soo diray gabdhaha Soomaaliyeed inay ku sii fidnayso inay sii qaataan inay maaragtay waxaan xunka iyo qashinkan iyo daroogada waxaan ay yani ay maaragtay soo dhigaysa inay ay la mid noqdaan sababtoo qofkan iyada markii waxaan sameynayso ma aan baa isleeyahay sababtoo ma aan qof Ilaahay ka xishoonaya ma ahan qof Ilaahay xasuusatay marka waxaan dhihi lahaa bulshada reer Nairobi hal iska qabto dhaqan xumadan ay gabdhahan qaarkood ay ku dhool Nairobi ee gabdhaha kale muslimaadka ee wanaagsan akhlaaqda leh ay ku fidneenayaan ugu dambeyntii inaan ku sii dheeraado muuqaalkayga mar rabo waxaan rabay inaan ii sheego war xaaladdan wax laga bedelo reer Kenya xaaladda wax ka bedela gabdhaha noocan ee wadanka ilu nool ee magaalada la jooga ee suuqa isku aragtiin ee haddana la sii sabood gareenayo hala joojiyo waxa khayrka la sii sabood gareeyo wax xumaantana la iska reebo aad iyo aad u maastiin soo gabagabeynaa muuqaal fadlan cusub soo dhawaada aad u maastay